taariikhda inta la ogyahay markii ugu horeysay tan iyo burburkii dowladii dhexe ee dalka sanadkii 1991 magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Hirshabelle waxay yeelanaysaa golo deegaan. shir looga hadlayo dhismaha golayaasha deegaanka magaaladaasi ayaa lagu qabtay gudaha caasimadda waxaana ka qaybgalaya xubno ka tirsan golaha wasiirada ee dhawaan uu soo magacaabay Maxamed Cabdi Waare. Ibrahim Cali Nuur oo ka soo warrama Jowhar ayaa warkan noo soo diray. kulankan oo ahaa mid looga harisanayay nidaamka maamul daadejinta dhismaha golaha deegaanka maamulka Hirshabelle oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose ayaa maanta lagu qabtay magaalada Jowhar. waxaa ka soo qayb galay kulanka qaar ka mid ah golaha wasiirada dawlad goboleedka Hirshabelle duqa magaalada Jowhar iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan magaalada Jowhar. mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay kulanka ayaa ku booriyay bulshada ku nool magaalada Jowhar inay si wanaagsan uga faa'iideystaan waxyaabaha lagu soo bandhigay kulanka maadaama ujeedada laga leeyahay ay tahay in bulshada dib loogu celiyo awoodda si ay u soo doortaan qofka masiirkooda ay ku aamini lahaayeen. kulanka waxa uu hore sharaxaad kooban ka bixiyay agaasimaha waaxda dawladaha hoose ee wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Hirshabelle Cali Xasan. shirkan wuxuu quseeyaa dhismaha golaha deegaanka saas marka ay tahay oo ay wado wasaaradda arrimaha gudaha waxaa jira wasaarado oo kala dhaxeeyo oo laga rabo arrimaha bulshada sida wasaaradda caafimaadka biyaha waxbarashada isboortiga haweenka wasaarado badan oo bartner la ah wasaaradda arrimaha gudaha waxaana loo baahan yahay in ay arkaan oo laga arko doorka ay ku leeyihiin ay ka dhex muuqdaan. sidaas darteed wax badan uu soo maray hadda wuxuu joogaa marka meeshii gabagabada ahayd oo la rabo in la dhiso konsoladii. duqa magaalada Jowhar Saalax Muude Cali ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo daadejinta dhismaha golaha deegaanka. waa shay aan aad ugu faraxsanahay maadaama aan ahay duqii magaalada haddii la leeyahay daadejin ayaa la sameynayaa shay waliba wuxuu leeyahay asalka haddii ay ka toosaanna wax waliba way toosayaan. marka waxaan leeyahay qobarada noo wada nidaamka kan ah ee maanta noo soo bandhigi doona waxaan rajaynayaa inaan ka faa'iideysan doono. dhinaca kale wasiirka xogeenka wasaaradda haweenka ee xulinsaanka maamulka Hirshabelle Xaliimo Cali Saciid ayaa sheegtay in wasaaradda arrimaha gudaha ay kala hadleen doorka haweenka ay ku yeelan doonaan dhismaha golaha deegaanka. waxaan rajeynaa sida wasaaradda u wado in loola shaqeeyo barnaamijka loo sii daadihiyo. wasaaradda in badanaa waxaa kala hadalnay doorka haweenka ay ku yeelan doonaan barnaamijkan dawladaha hoose waa isla qaadanay in qootadii boqolkiiba 30 ahayd ay wasaaradda sameyso. gabdhahana iyo ururka haweenkana waxaa ku wacyigelinaa in intaas waa loo ogol yahay iyo ka badan waa loo raadin doonaa inay iyaga raadsadaan. haddii iyagii raadsanno iyagii ay la imaanin raadsasho iyo ficil la imaanin hadhowdii markii wixii xeray fandhaal kala dhacaan wax ma tarayso qoondadeena mana la siinin. ugu dambeyn wasiir dawlaha wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Hirshabelle Cabdullaahi Cusable Barre ayaa sheegay in dhismaha golaha deegaanka lagu saleynayo rabitaanka bulshada. annaga danka wasaarad ahaan waxaa naga go'an in aanu maamulka daadejino oo rabitaankiina aan ku daadejino. maamulka khasab kuma daadejinayno waxaan ku daadejinaynaa rabitaankiina. maamulka meesha laga hadlo koontada haweenka la yiri boqolkiiba 30 koontada haweenka koonto kale garab taana jirta dadka laga tirada badan yahay inaad ku raali ahaataan oo nan ka xanaaqin waa la rabaa oo ogolaataan koontadooda ayagana bulshada la weydiin lahaa waa idinka. todobaadyada soo socda ayaa la qorsheynayaa in la guda galo dhismaha golaha deegaanka maamulka Hirshabelle waxaana loo sameyn doonaa ilaa 4 degmo oo kala ah Warshiq, Jowhar, Buulobardi iyo Beledweyne. Ibrahim Cali Nuur, TV Universal, caasimadda Hirshabelle, Jowhar.